Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ardayga kusoo dhawaada English Form 4 book yahay English Form 4 ka dugsiga sare oo ayaantan wadna duubistiisa. Hadduu Ilaahay karaan noqdo maanta waxaan duubaa oo ku saabsan writing page 11 page ka 11aad. Page-kan wuxuu ka hadlaa composition kaasoo aan ka hadli doono oo aan ka shaqeyn doono. Composition-ka wuxuu ku saabsan yahay laba cibaan oo la siiyay. Marka page 11 waxaan ku arkaynaa write on oo ah qorid. Write qor composition curis beginning with kaasoo ka bilaabanayo the following statement hadalkan soo socdo. Aniga wondered waan isweydiiyey why sababta the school principal maamulaha iskuulka had summoned me oo aniga igu wacay. Ciwaankan marka arday waxaan laga rabaa inaan ka qorno composition waxaa la curis oo qoraal yar oo aad ka sameynaysid ciwaankan kaasoo la rabo inaad curisid oo adiga aad sameysid. Marka aniga tusaale idin siin doonaa mid yar ani aan curiyay waan isleeyahay ardayda ha u noqdo tusaale waxaa la iska rabaa ku ogaadaan. Waxaadna markaad isku daydid b waxaa laga rabaa asigana inaad qorto essay. Marka composition iyo essay-ga farqi yariisa u dhaxeeyo. Composition-ka waa essay yar waaye asaga essay-ga uu ka yar yahay laakiin essay-ga composition-ka uu ka weyn yahay. Definition ahaan horta waxaa lahaa a short piece of writing by a student as part of course of study. waa qoraal yar oo ardayga oo qorayo markuu course qaadanayo ama qayb course ka mid ah markuu ku jiro qoraal yar oo loo diro oo qori doono waaye. Marka kan hoosena waxaa arkaynaa b essay write qor and essay qor describing adigoo sifeynayo the state-ka or amase town magaalada you live in aad ku nooshahay. State waxaa la dhahaa meel ay ku yaaliin guryo xoogaha guryo badan ay ku yaaliin waxaa la state. Town waa magaalo. Marka magaalada aad ku nooshahay ama state-ka aad ku nooshahay adigoo wax ka qorayo qor. Kusoo dhawaada essay-gii aan ka hadli lahayn. Essay-gan wuxuu ku saabsan yahay ciwaankii koowaad oo ahaa I wondered why the school principal had summoned me. Waxaan isweydiiyey sababta igu wacay maamulaha iskuulka. Marka sidaan ayaa u qori kartaa paragraph-ka. At the beginning of my first week in the school things was not good because the class was without a monitor. Then the head teacher started calling one by one the students in different classes to come his office to name them as the leaders of their classes. I was one of them who was named as a monitor to his class. Then one day some of our class members started screaming and shouting in the class. Then the principal called me to come his office immediately and I started to wonder myself why the school principal called me. Paragraph-kan iyo paragraph-yo kale aan ka qornay. Haddii aan fasirno paragraph waxaa laga wadaa at the beginning of my first week bilowga isbuuceygii koowaad in the schoolka things shayada was not good ma ahayn kuwa fiican because maxaa yeelay the class fasalka was wuxuu ahay without a monitor kaabgalaas la'aan. Then the head teacher maamulaha started ayaa bilaabay calling u yeerida one by one mid the students ardayda in different classes fasalo kala duwan to come si u yimaadaan his office xafiiskiisa to name them so ugu magacaabo kuwaas as the leaders hogaamiyaasha of the classes fasaladooda. Aniga was waxaa ahay one of them mid ka mid ah iyaga who was named mid oo lagu magacaabay oo loo magacaabay as a monitor kaabgalaas ahaan to his class fasalkiisa. Then kadib one day maalin some of our class members kuwa ka mid ah xubnaha fasalkeena started ayaa bilaabay screaming cabaadida and shouting iyo qaylinta in the class fasalka dhexdiisa. Then kadib the principal maamulaha called me ayaa ii wacay to come inaa imaado his office xafiiskiisa immediately si dhaqsiya. And aniga started waxaan bilaabay to wonder inaan isweydiiyo oo is-su'aalo myself nafsadeeda aan su'aalo why the school principal sababta the school principal maamulaha iskuulka called me oo igu wacay.
I went into the office and the principal asked me about my class and told me that I am the monitor of Form 4 class. Each time the principal called me, I wonder myself some question is like, why is he calling me and what will be the reason he ordered me to come his office? Questions like this always comes to my mind, and they are the biggest questions that I always wanted to have the answers. Paragraafkan waxaa laga wadaa hi aniga went waxaan aaday to the office xafiiska and the principal maamulaha asked me ayaa i weydiiyey about wax ku saabsan my class fasalkeyga and told me wuxuuna ii sheegay that I am the monitor anina ahay kaabgalaaska form 4 form 4 class fasalka form 4 each time waqti kaste the principal called me oo ii waco maamulaha I wonder waxaan isweydiiyaa to myself nafteeda aan weydiiyaa some questions xoogaa su-aalaha like sida why is he calling me wuxuu aniga igu wacaa and what will be the reason maxayna tahay sababta iyo asaga ordered me ani oo ii amray to come inaa imaado his office xafiiskiisa questions su-aalaha like this sida kuwan always comes mar walba way yimaadaan to my mind maskaxdeeda ayay kusoo dhacaan ay yimaadaan and they iyaga are the biggest questions waa su-aalaha ugu weyn that I always wanted taasoo aan had iyo jeer rabo to have inaan haysto the answers jawaabahooda. Codkana maanta xabeebaa ku jirto oo hargab iyo waxbaa jiro haddii codka wuxuu yahay waa idinka raali gelinaa maanta. The head teacher of my school is a hard worker. He always needs to know what is going on in the classrooms, and he calls one by one each monitor in the school. If he feels something is happening in the classrooms, the first person he calls is the monitor of that class. And when my class happens something wrong or strange, immediately the principal will call me to come his office. And I always go to his office to answer his questions regarding my class. Haddana kusoo dhawaada paragraafka macnihiisa. The head teacher maamulaha of my schoolkayga is a hard worker waa mid shaqo badan. He asaga always had iyo jeer need wuxuu u baahan yahay oo raba to know inuu ogaado what is going on waxa ka socdo in the classrooms fasalada dhexdooda. And he asaga calls wuxuu u wacaa one by one mid wuxuu ugu wacaa each monitor kaabgalaas kaste in the schoolka. If haddii he feels oo dareemo something shay is happening oo ka dhacayo in the classrooms fasalada dhexdooda, the first person qofka koowaad he calls oo u yeerayo is the monitor waa kaabgalaaska of that class fasalkaas. And when goorta my class fasalkayga happens ay ka dhacaan something wrong shay khaldan or amase strange qariib ah, immediately si dhaqsiya the principal maamulaha will call me ayuu igu yeeri doonaa ama igu wici doonaa to come inaa imaado his office xafiiskiisa. And I aniga always had iyo jeer go to waan aadaa his office xafiiskiisa to answer sa ugu jawaabo his questions su-aalihiisa regarding ee la xiriiro my class fasalkayga. An essay describing the state or tone I live in. Paragraafkan kale waxaa uga hadlaa essay ku saabsan ama ku sifeynayo stateka ama toonka aan ku noolahay. Horta ereyga state wuxuu leeyahay ilaayo laba macno. Macnaha koowaad wuxuu noqonaa hanti, macnaha labaadna waa meel ay ku yaaliin guryo badan oo isku eg Britishka definitionkooda markii la fiiriyo. An area of land with a lot of houses or factories of the same type on it. Waa meel ay ku yaaliin guryo badan ama shirkado badan oo isku eg. Macnaha kale saddexaad oo noqon kara waxa waaye hanti oo qof leeyahay oo si khaas ah u leeyahay waxa lahaa state. Marka an essay describing sifeynayo the stateka meeshaan ku noolahay or amase town magaalada I aniga live in aan ku noolahay. Marka paragraafka akhrina ka bacdi aan fasira. The town which I live in now is a beautiful town. It has many important roads and markets.
There are many different people and they are all level of age, whether it is young, middle and old. Its people are kind people and they welcome everyone who come to it. In my town there are many schools, hospitals and stadium which you can find a lot of people in them. Paragraafka waxaa laga wadaa the town magaalada which I live in aan ku noolahay now hadda is a beautiful town waa magaalo qurux badan. It has waxay leedahay many important roads wadooyin badan oo muhiim ah and markets iyo suuqyo. There are waxaa jiro many oo jooga laga wadaa many different people dad badan and they are all level of age waxayna yihiin dhammaan heerarka da'da whether it is haddee tahay young mid yar middle dhexdhexaad and old duq. Its people dadkeeda are kind people waa dad naxariis leh and they welcome wayna soo dhaweeyaan everyone qof kaste who come kaasoo yimaado to it magaalada. In my town magaaladeeda dhexdeeda there are many schools waxaa ku yaala iskuulo badan, hospitals isbitaalo and stadium iyo garoomo which kuwaasoo you can find aa ka heli kartid a lot of people dad badan in them dhexdooda isbitaalada iyo iskuulada iyo garoomada aad ka heli kartid. Paragraafka xigo it is a large town which you can find everything. It's connected with other town around it. Its people are well educated people. They have different skills and the transportation of it is very cheap. Its food is very delicious and it tastes very good. Its people are Muslims. There are many mosques in my town. If you come, you will not be worried. Its telecommunication is cheap and well. You can find internet services in the town. This town is the best town in my country. Anyone can come and visit it. The town is welcoming everyone who wants to come. Paragraafka waxaa loola jeedaa it is a large town waa magaalo weyn which you can find taasoo aad ka heli kartid everything shay kaste and it is connected with waxay ku xiran tahay other town around it magaalooyinka kale ku hareeraysan. Its people dadkeeda are well educated people waa dad si fiican wax u bartay. They have different skills waxay haystaan xirfado kala duwan and the transportation of it gaadiidkeedana is very cheap aad u raqiis u yahay. Its food cuntadeeda is very delicious aad u macaan u yahay and it tasted very good wuxuuna u dhadhamaa si fiican. Its people dadkeeda are Muslim waa Muslim. There are many mosques waxaa jira masaajido badan oo ku yaalo in my town magaaladeeda dhexdeeda. If you come haddii ay imaato you will not be bored ma caajisi doontid. Its telecommunication isgaarsiinteeda is cheap waa raqiis and well waana mid fiican. You can find the internet services waad heli kartaa adeegyo internet in the town magaalada dhexdeeda. This town magaaladan is the best town waa magaalada ugu fiican in my country wadankeyga. Anyone qof kaste can come waa imaan karaa and visit it waa booqan karaa. The town magaalada is welcoming way soo dhaweynee everyone qof kaste who wants oo rabo to come inuu yimaado magaalada. Arday labadii ciwaanayna la siiyey A iyo B. Paragraafkan ayaan ka qoray si aan idin tuso tusaale ahaan in paragraafka la qoraayo oo noqon karo sidaan ama oo noqon karo sidaan si ka fiican. Inta badan ardayda galaysa imtixaanada dowladda maadada ingiriiska markii la weydiiyey su'aalaha grammar hadday yihiin hadday yihiin vocabulary ama sheeka hadday yihiin passage kabacdi waxaa la weydiiyaa inay qoraan composition ee ka qoraan 3 ciwaan. Compositionadaasoo laga rabo arday inuu ku curiyo ciwaanka wax ku saabsan. Marka ciwaanka inta buugga ku jirto ciwaana waa isku dayi doonaa adigana isku day si aad ugu baratigayso hadhowna aad uga shaqeyso imtixaanada soo socdo compositionadooda. maanta halkaas ayaan ku simaa unit 1kane alxamdulillah waa ilaahay mahadiis oo ii dhamaaday si nabad leh ayuu igu dhamaaday. wixii aan qalday nafteeda iyo shaydaan waay wixii aan saxane min Allah waa ilaahay xagiisa ay ka timid. intaan kulmeena unit 2 waxaan idin leeyahay macaan xasan oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. channel kana lagu xirnaado xasan kaafi.